waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba عشرة كمان كيل اللغات راح يبقى 10 كيلو هذا 10 كيلو راح يتصاب على لبدا ما جنريترز كا دي سي جنريتر انا صار اي سي جنريترز وجدوا 10 كيلو انا وحبيا الى انك رصاني في الماء لبدا ما جنريترز واحد كل دوي وراح لقينا دي سي جنريتر هو اي سي جنريتر كلمه هي وصل له هي مسك دوي ديسي جنريتر اسكا دلعبه كلمه ديسي لبدا حرف ديسي ديسي wuxuu taagay direct current oo dalabka toos ah isagoo way current oo dalab soo hal direction like that for the battery dabka battery ka wareega waa disi battery nooc dalab hal ka mobile hal ka power hal asal DC generators are similar in construction to DC motors DC generator wuxuu kala mid yahay xagga qaab dhismeedka DC motors marka laba ay kala garano generator iyo motor labadaas maxay yihiin generator waa producer it produces electricity motor waa consumer it consumes electric energy kan wuxuu soo saaraa dab kana isaga dab isticmaala soo motion u dhaliyo soo dhaqaaq u dhaliyo kana wax weyn marka la dhaqaajiyo ayuu dab soo saaraa therefore haddii motorkii dabka cuni jiray marka dab la xidho dhaqaaqi jiray isagii la dhaqaajiyo wuxuu u dhaqmayaa sidii generator it produces saddex hore soo qaadanay motorkii la tusayay markaynu socodka ku samaynay waxaad arkaysaa maxaa inuu dab soo saaray marka xagga qaab dhismeedka waa kala mid DC motorka aan ku celino generator ku soo saaro dab motorku isaga dabka isticmaala soo socdo dhaliyo haddii isagii la socodsiiyo wuxuu dhalinayaa wuxuu ka samaysan yahay sidii AC generatorka ayaa wuxuu ka samaysan yahay magnet coil of wire rectangular coil of wire halka kaliya uu ka duwan yahay DC generatorka AC generatorka waxa weeye waa halka waa halkan labada cirif ee duubi oo kuwana waxay ku xidhan yihiin mid walba split ring kala jaban ama broken ring kala jaban oo half walba oo carbon bushes ama dhuxulaha u taabanaya half walba oo mar taabanaya halka AC generatorka labada cirif ee duubi mid walba gaar ahaantii uu ku xidhan yahay bir laba bilood kala duwan oo slip rings hadaa la xasuusiyo AC generator qaab dhismeedkiisu sida ma duubigii waa kan halkaas ay ku kala duwan yihiin bidisa narsmo southbo kana waa qualified kaasina waa access ama waa speed markuu ku wareegay halka ku kala duwan yahay halka AC generatorka mid walba gaar ahaantii wuxuu ku xidhan yahay slip ring bir qaab dhismeedkeedu sidaa tahay cirifka kalena wuxuu ku xidhan yahay birtiisa gaar kaasi waxa weeye accesskii kana waa carbon busheski
marka this AC generator kana loo maxay waa DC generator markay ku kala duwan waa maxay halka kan labadii sacifay labada baad ku kala xidhay labada baad waxa loo leeyahay qori dabka ka soo baxay labada waxa weeyaan waa AC current laakiin wuxuu DC ku kala duwan yahay kaliya wuxuu leeyahay halkii isla waxa ku jira split ring hal ring oo kala jaran halka laba ring ay halka ku jiraan waxaa faa'iidada ku jirta tahay inuu half laba mar taabto xush si output circuit-ka uu dabo gaaro laambada si ay dab hesho waayo xagga qabsmadka DC generator wuxuu la mid yahay DC motorka sidoo uu shaqeeyo uu ku dhaliyo wada ka is rotating marka duubiga la wareejiyo باللفظ نحن نجيب AC is generator alternating current is generator نوع ضغط كذا لنا يضوي يوم وايد لكن حابب يصير كذا however the action of commutator this is called commutator because it makes the direction of AC DC can DC كذا جواب because think and one think كذا جواب half of our محاولة كلها تعالى هلبا أيضا حشر تعالى فرق وصناعي split ring makes the current DC طبعا بدها كذا رأي واسي لكن كDC كذا جواب حل direction of commutator makes the direction of current DC okay each side of the coil cuts the magnet half نلعب مع بعض maybe this is side AB side CD. Each side of this coil cuts the magnet half. This side AB cuts the magnet half, and also side CD cuts the magnet half. And طبقة كنا لنا واحد. There's no backward current. طبقة AC بلا كرشة، وحدي AC كنا جواب حي، وكمتيتر كمان هو split ring كرتون، وهاف البابا بهش تعبنا يحلو. واحد يصدق على صاغة ماكسيمم كانت قدرت الرشا يوم كانوا بودها ضبط على ما جنريتر كانوا ضبط عليه لما جاء ضبط كذا شغال عليه ماكسيمم كانت الجنريتر whether AC or DC generates maximum current on the coil is horizontal to the lines وقارن مركا لما ذا أي هي 90 degree and also 270 degree قال ما له دبانة شريم أو جنريتر كمان DC هلا وما AC هلا قال ما له دبلين مركا direction بيهاي 0 degree 100 degree and also 360 degree because these three angles the coil is vertical to the lines مركا دوبي vertical كويهاي في lines كا واحدة بخر دلائل ماشي سبب طبعا صدق أنا قال ساي كود باسيل ساي 0 ساي 100 ساي 360 waxaan hore soo barnay equation in voltage-ka lagu helo electromotive force-ka lagu helo BLV sine theta oo kan ahaa magnetic strength bilabta xoogeeda length of the wire speed of the motion angle of the motion therefore these three angles the sine of these three angles equals 0 sine 0 equals 0 times number equals 0 that means there's no voltage sine 360 صدق عقب مساك بدو حمية وزيرو 0 times number equal 0 وانا صوبت voltage عنو بدل لين واي إلا هذا واحد صوبر الله وحياة يسكلمت كيهين AC يا DC AC يا DC محاسس قبل يمرك لبض الواحد يمرك لبض الواحد كارفاي لكن محاكو كان دويه بدنا وحوليه سليب رينجز بدنا وحوليه سبليت رينج بدون حصوص على دايركت كرنت بدنا حصوص على alternating current واي وحياة كم يسويه إن بف AC and DC generators ديناموي كAC قصص على يكون DC قصص على the reduced EMF can be increased by ضبط كان على لبض وحلقوه كل كلام by increasing the number of turns طوبي جوه كبريو طوبي جوه كبريو increasing area of the coil إن طوبي على سوق طوبين وكبريو مع area الكبريو لو طوبي and also using a stronger magnet برلاب حوجن ولا
rotating the coil faster in duubiga speedka lagu wado la kordhiyo saddex qodobadaas waxay saboorgareynayaan formulada increasing the number of turns that means increasing length of the wire waa qodobka using stronger magnet that means increasing magnetic field strength بالربط xoogeeda la kordhiyo rotating the coil faster speed ka la kordhiyo that means increasing speed of the motion in la kordhiyo waxay soo baranay haddaynu ku celino casharkeena dambe DC generators DC generator DC waxay u tahay tababarni direct current oo current u socda one way direction DC generators waxay la mid yihiin xagga qaabdhismeedka DC motor marka maxay ku kala duwan yihiin generator iyo motor generator waxaan sheegnay inuu yahay consumer it produces electricity marka isaga la socodsiiyo ayuu dab dhaliya halka motorka marka isaga dab la siiyo uu socodkeeno marka haddii kii soconaya la socodsiiyo isagii wuxuu dhalinayaa electric therefore DC motors can be made DC generators wuxuu ka kooban yahay haddii la weydiiyo wuxuu ka kooban yahay main parts waxa weeye waa magnet by concave oo dhinac salaxa dhinacna concave xoodan waxa ka kooban yahay rectangle coil of wire split ring dabka soo saaray waa DC dabka gudaha ka dhalaya waa AC laakiin waxa DC ga ka dhigaya waa maxay waa commutator ama split ring ringka kala jaban ayaa ka dhigaya sidoo dabka u dhalaya waa the coil is rotating AC is generated duubiga marka la wareejiyo markii dabka ka dhalaya nooca dabka ka dhashay waa maxay waa AC however the action of commutator or the action of split ring ringka kala jaban sheegay ayaa talaabo ficilka sameynaya inuu currentkii ka dhigo makes the current DC or direct current each side of the coil cuts the magnetic field half waxa kale oo soo sheegay in marka dabka ugu badan dhalinayo generator dabka ugu badan dhalinayo iyo marka generator dabka aanu dhalinayo laba jeer waxa weeye dabka dhalinayo waa maximum saddex jeer dabka waxa weeye wax daba dhalinayo ma jirto guud ahaan marka dabka ugu badan dhalinayo waa goorma when the coil is horizontal to the lines that means when the coil is 90 degree to the lines and also when the coil is 270 degree to the lines the triangles that the coil has no current are 0 degree 100 degree and also 360 degree marka dabka ka dhashay duubiga dabka ka dhashay generator AC hano DC hano waxa lagu kordhin karaa increase in la kordhiyo duubiga la kordhiyo in la kordhiyo area da duubiga ku duwan yahay iyo in maxaa la isticmaalo birlab xoogan using stronger magnet and also rotating the coil faster that means increasing the speed of the motion in la kordhiyo AC iyo DC generators maxaa farqiga u dhexeeya maxay kala duwan yihiin halkan waxay ku bari AC generators and DC generators. AC generator labadii saciid wuxuu isticmaalaa it uses slip rings. Waa bro oo la slip rings waa bro sabashada ugu fiican. Halka uu DC generator isticmaalo split ring hal ring oo kala jaban kana wuxuu isticmaalaa two slip rings. Kan dabka soo saaray waa AC that means alternating current. Kan dabka soo saaray waa DC waa direct current.
output voltage can we play forward current, backward current. Therefore, can we play output voltage was smooth. That means there is no backward current. It follows one direction. Then can also alternate current. One time it moves forward, another time it moves backward. And that's why it's called AC. AC means alternate current moving forward, backward. عشان كده هنقص بقى إن شاء الله 10 دقيقة تنسبوه